magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maanta soo dhaweyn diiran loogu sameeyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake. Masar Cumar oo Soomaaliya laba jeer oo hore ka soo noqday ra'iisul wasaare ayaa soo dhaweyntiisa oo ahayd mid aan loo kala harin waxaa ka qayb galay xildhibaano baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan mas'uuliyiin hore xilal kala duwan uga soo qabtay dowladihii dalka soo maray odayaal iyo marti sharaf kale. ugu horeen xildhibaan hore Axmed Dubays ayaa musharax ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid waxa uu ku tilmaamay inuu yahay shakhsigii ummadda Soomaaliyeed ay wada sugayeen maadaama uu ku soo aaday waqti ku haboon inuu hogaamiyo dalka. marka hore Ilaahay baa mahad leh, marka labaadna waxaanu soo dhaweynaynaa waftigan ka soo kicitay Nairobi oo hogaaminayo ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake haddana musharax madaxweyne. soo dhawaada ra'iisul wasaare murashax madaxweyne adiga iyo waftigaaga isugu jira xildhibaano iyo siyaasiyiin iyo rag odayaal ah oo soo dhaweynayna Muqdisho ku soo dhawaada maadaama Cumar Cabdirashiid uu soo galay garoonka ciyaarta tartanka waxay la tahay wax badan iyo miisaan badan baa isbedeli doona dheeli badan baa ima doono siyaasadeed ama wax socdeen halku dhigaagi ah xasiloon siyaasadeed baa dadku aad u rabaan u xiiseynayaan laguna soo dhaweynaya soo dhawow adiga iyo waftigaaguba insha Allah guul waa ku rajaynayna waa mahadsantii. dhinaciisa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya musharax mudane Cumar Cabdirashiid ayaa ugu mahad celiyay mas'uuliyiintii soo dhaweysay. mahadsantiin hadee wafdigan xilwaanada Nairobi iska soo wada raacday wadankooda waana rajaynay hadii la yiraahdo maadaama waqti doorasho la galay qof kasta in xogaa degdeg ku noqotay soo bixida iyo imaatinka halka hadii la yiraahdo xilwaan Dubays xilwaan hore Dubays soo sheegay waxa la tahay hadda waa isdiyaarin iyo doorashada si loo qaybgal lahaa marka waa mahadsantahay waxa la tahay wixii hadala iyo wixii qorshaha gadaal umbaan hadii la yiraahdo soo sheegi doona. musharax Cumar Cabdirashiid oo halkuligiisu yahay xasilooni siyaasadeed ayaa ah mas'uul howlkar ah waxqabadkiisu muuqdo ayaa waxa uu isku soo taagay xilka madaxtinimo ee Soomaaliya inkastoo 8 February 2017 uu mas'uulkan isku soo sharaxay balse u suuragali weysay ayaa dadaal badan oo sanadkan geliyay ololihiisa waxa la wada rajaynayaa inuu ku guuleysto go'aankiisa ah hogaaminta dalka si uu Soomaaliya uga samata bixiyo marxaladda adag.